السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا رسول هذا وسؤال مانتا حمودين إننا مبندقنا الشيخ محمود شبلي شيخ خير الله كوسيو سائلكم الدولية هي قربها وحكوبا إن الإسلام دقو وقبل يويل أنا وحبا أدحين إن الإسلام دقان حرير وحرير أنا أدحين إن الإسلام دقان قرابا نمي يوحلا مدى يكوه الدقان marka su'aashu waxay noqonaysaa ma isla degi karaan hal guri iyagoo kala dhowrsanaya hadday dhacdo inay isla degaan xukunkooda muxuu yahay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah bacda masaladeeda mushkiladeedu waa masalo qurbo gaar ku ah maaha sharcigu wuxuu xaraantinimeeyey rag iyo dumar isgaya guur iyo meherna isu qabanayo inay gurigu kaliyaystaan deegaan iyo joogis wakti go-aan ah midkay dooni ha noqotay nabi casan wuxuu reebay laa yakhluwanna rajulun bimra'ati miyuusan la gaar noqonin dumar riwaayad qaarkoodna wuxuu ku daraya ilaa kaana shaytaanu haliifa dumarka iyo raggu wax ilaahay dhexdooda wuxuu dhigay caatifad iyo dareen shahwo badan u dhigay rag iyo dumar gayaalis oo isguursan karana waa dadkii xiriir shahwo inuu dhex maro sharcigu u ogolaa hadday jidkeed iyo dariiqeedi u maraan saa darteed lama ogola laba qof oo ajnabi sharciga kala ah oo keligooda inay guri wada degaan iska daaye inay xafiis keligood wada joogaan baan la ogolayn si aan shaytaankuna uga faa'iidaysanin wax kaloo xumaataana meesha uga bilaabanin hadday rabaan inay wada degaan xalaalna isu yihiin ha isguursadaan nolosha iyo cibayskeedana ha iska kaashadaan haddii ayna taas dhacaynin gabadhuna gabdha ay la degta ha raadsado wiilkuna wiilal iyo raguu la dega ha raadsado intay gabadhani rag la degi lahayd gabadhaana rag la degi lahayd gabdhuhu iyagu ha isla degaan wiilashu iyagu ha isla degaan diin ahaan ma banaana rag iyo dumar sidaas ajaanib ah inay gaar u wada degaan isla keliyaystaan inay kala dhowrsadaan say u kala dhowrsan lahaayeen sidan ma aha waa asbaab kamida oo xoog badan inaanay kala dhowrsoonaanin laba qof oo keligood meel wada degan hadal iyo haasaawi isdhexgal way isdhexgelayaan saas darteed labadan qof ilaahay intay ka baqaan dhalintu iyo rag iyo dumarku waxaan dambiga iyo xaaraanta iyo zinada sabab ugu noqon kara iyo asbaabteedii ay iska daayaan wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء خير بارك الله فيك شيخ